السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ardayda sharafta leh soo dhawaada waa maalin kale qurux badan iyo cashar aad iyo aad u wanaagsan waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad wada caafimaad qabtaan si la mid ah alxamdulilah waa caafimaad qabaa okay hagaag maantana halkan waxaa inoogu hayaa muuqaal aad iyo aad u xiiso badan maalmahan sidaad aragtaan waxaa aad iyo aad xooga u saarayaa vocabularies ereyo maalmeedka oo had iyo jeer muhiimka ah in aan baranno okay luqadda ingiriisiga in aan ku naqaano ereyooyinkaas waxaan rajeynayaa inaad dhammaan aad ka wada faa'iideysanaysaan are we together that's good so maanta casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay house vocabulary okay ereyo markaas aan ka baranayno waxyaabooyinka guriga gudihiisa ku jiro iyo guriga banaankiisaba okay ereyo markaas guriga gudihiisa waxyaabooyinka guriga gudihiisa laga helo baan rabnaa inaan insha Allah afka ingiriisiga ah aan ku baranno so insha Allah dhawaaqan baran doonaa iyo sidoo kale macnaha idinkana isku daya in aad at least 3 ama 2 kamid ah aad jumla aad geliso insha Allah xagga commentiga aan nagu la wadaagto okay that's good ereyga ugu horeeya aan baranayno maanta waxa uu leeyahay roof waxaa la yiraahdaa saqafka kore oo guriga okay guriga laba saqaf uu leeyahay saqafna waa midka kore oo koofiyada kore banaanka ah dibadda midna waa saqafka hoose oo guriga gudihiisa ah so kan guriga gudihiisa waa u tagi doona casharku kamid yahay insha Allah ila soco okay ereyga xigo hoos ereyga waxa laga yaabaa badankiin inuu ku cusub yahay qaarkiina laga yaabaa inaad garanaysaan hoos waxaa la yiraahdaa pipe weyn oo badanaa guryaha la soo dhigto oo tuubada inta lagu xiriiriyo yani pipe waxa gudahana u ballaaran balca ahaan markaasna muxuu ahaa dadka beeraha guriga ku laha oo kala beerahaas ku waraabsadaan so waa pipe dheer gudihiisana balca ahaan waa uu ballaaran yahay so marka tuubada lagu xiriirshaa and then beeraha markaas lagu waraabsadaa pipe-kaas marka tuubadaas pipe-ka waxa la yiraahdaa hoos ayaa la yiraahdaa okay ereyga xigo frying pan waxa la yiraahdaa canjeerada okay birta ama jabaatiga ama canjeerada wixii lagu dubtabo ama midkan caadiga ah oo dhegta leh oo caadiga chipsiga iyo waxaas lagu karsado caadi waa la yiraahdaa frying pan okay good ereyga xigo refrigerator waa midkan waxyaabaha lagu qabowsado ayaa waxa la yiraahdaa fridge-ka waxa la yiraahdaa refrigerator waxyaabaha lagu qabowsado la gashto waxa la yiraahdaa refrigerator ereyga xigo fork waa baashan baastada lagu cuno waxa la yiraahdaa qaadada fargeetada ah oo baastada lagu cuno waxa la yiraahdaa fork waa fargeeto fork fargeetada baastada lagu cuno waxa la yiraahdaa fork ereyga xigo staircase waa jaraanjarta guriga gudihiisa laga sameesto waxa la staircase guriyaha iskorsaarka ah oo kale ba marka qofku uu laba guri iskorsaar u sameysanayo kale waa qasab inuu jaraanjar uu guriga gudihiisa ku sameeyo jaraanjarta guriga gudihiisa waxa la yiraahdaa staircase ayaa la yiraahdaa okay that's good ereyga xigo sofa waa fadhiga guriga la dhigto fadhi carbeedka waxa la yiraahdaa fadhiga jilsan sofa ayaa la yiraahdaa ereyga xigo pillowcase okay saasa loo dhaqaa pillowcase waa harqada muxuu ahaa barkinta la geliyo waxa la yiraahdaa maradaas waxa la yiraahdaa pillowcase okay hagaag ereyga xigo hook waxa la yiraahdaa baaladan darbiga lagu dhajiyo dharka la surto ayaa waxa la yiraahdaa hook la yiraahdaa so kuwa dharka la surto marka waa laba nooc kuwana darbiga lagu dhajiyo dharka saas looga soo lalaadiyo kuwana dharka inta la dhaxgalisho ba meel la suraa so kuwa dharka la dhaxgalisho meel la suraa ayadana casharku kamid yahay waa arkeena laakiin hook waa kuwa darbiga saas loogu dhajiyo oo dharka laga soo lalaadiyo dharka saas loo suro waxa la yiraahdaa hook ayaa la yiraahdaa erey xigo charcoal waa dhuxusha la shito waxa la cunada lagu karsado ba waxa la yiraahdaa charcoal la yiraahdaa dhuxusha erey xigo lead
lid waxaa la yidhahdaa digsiga daboolka digsiga waxaa la yidhahdaa lid ayaa la yidhahdaa. Okay, yeah, lid. Yeah, good. Ereyga xigo microwave. Microwave waa bahalkan korontada ku shaqeeyo oo cunnada lagu kululeysto. Cunnada xoogaa markay kaa qabowdo bahalkaas cunnada gudihiisa la geliyo kadibna lagu daaro oo cunnada xoogaa kululeeya waxaa la yidhahdaa microwave ayaa la yidhahdaa. Okay, microwave. midna refrigerator cuntada qabojiya kana cunnada kululeeya. Ereyga xigo candle waa shumaca la shito markuu korontada kaa tagto oo kale bahalkaas shumac baa la yidhahdaa. waxaa la yidhahdaa candle baa la yidhahdaa. Okay, candle waa shumac. Ereyga xigo carpet waa rooga guryaha la dhigto waxaa la yidhahdaa carpet ayaa la yidhahdaa. So carpet or rag ama waa dhigi kartaa labadaba. So waa rooga guryaha la dhigto. Ereyga xigo closet waxaa la yidhahdaa armaajada dharka ama waxaas lagu xareysto waxaa la yidhahdaa closet ayaa la yidhahdaa. Closet. Good. Ereyga xigo blanket waa bustaha la huwado waxaa la yidhahdaa blanket. busta waa blanket. Okay, yaa bustaha. Ereyga xigo chimney waa bahal jikada banaankeeda oo sare laga hagaajiyo duleel yar oo saas loo baneeyo oo qiiqa loogu talagalay inuu ka baxo marka jikada waxa aad ku karinayso kala qiiqaas meesha uu ka baxayo oo guriga dekadiisa sare baa laga sameeyaa. Okay, so chimney ayaa la yidhahdaa. meeshaas qiiqa uu ka baxo waxaa la yidhahdaa chimney ayaa la yidhahdaa. Okay, good. Ereyga xigo rake waa fargeetada oo dhulka lagu xaaqo qashinka lagu aruursho wax la rake. mid cunnada lagu cuno fork baa la yidhahdaa. tan laakiin fargeetada oo qashinka lagu xaaqo oo qashinka markay kala maartay kala isku dhex daadsan yihiin saal iskugu soo aruursho waxaa la yidhahdaa rake ayaa la yidhahdaa. Ereyga xigo blender waa baasha cabitaanka lagu shiito. Okay, mashiinta cabitaanka lagu shiido waxaa la yidhahdaa blender. mashiinka cabitaanka lagu shiido blender. Ereyga xigo rolling pin waa bahalka qorijabaatiga lala isticmaalo usha qorijabaatiga waxaa la yidhahdaa rolling pin. usha oo jabaatiga lagu fidiyo baa waxaa la yidhahdaa rolling pin waa usha dhuuban. Okay, yaa rolling pin waa usha qorijabaatiga. Okay, ereyga xigo ceiling waa saqafka guriga kan gudaha oo guriga gudihiisa ah waxaa la yidhahdaa ceiling la yidhahdaa. midka banaankan waxaa dhahana roof waa kan saqafka kore banaanka kore laakiin kan guriga gudihiisa ah waxaa la yidhahdaa ceiling baa la yidhahdaa ceiling. Okay, so waa kala fahanteen oo malena ceiling waa saqafka guriga gudihiisa ku yaalo roofna waa saqafka banaanka ah. Okay, ereyga xigo cushion waxaa la yidhahdaa bahasha jilicsan oo fadhiga saas loo kala saaro si barkin ahaanta ah loo sameeyo oo suuf magarnay mari wax lagu aruurshe oo wax lagu tiirsado ama gacanta la saarto. fadhiga yani sofaga baa la kor saara barkimaha yaryar oo fadhi carbeedka saas loo saaro waxaa la yidhahdaa cushion la yidhahdaa. cushion waa barkimaha yaryar oo jilicsan oo fadhiga saas loo saaro oo qofku uu isticmaali karo. cushion ayaa la yidhahdaa cushion. Okay, that's good. Ereyga xigo curtain waxaa la yidhahdaa waa daaha. Okay, daaha guriga waxaa la yidhahdaa curtain. so haddaad daah soo iibsanayso oo kale English waxaa lagu yidhahdaa daaha curtain ayaa lagu yidhahdaa. cushion sidoo kale waa barkimahaas yaryar waad fahantaan maleynayaa. Ereyga xigo hanger waa kii aan ku sheegayo oo maryaha la gashto kadibna waa bahlada maryaha saas inta loo geliyo si maryaha aysan aysan iskaga kaajajabin oo maryada markaas u geliso marada toosan bay way si fiican bay u fidsamaysaa kadibna meel baa saas loola suraa. hanger baa la yidhahdaa. laakiin kuwa caadi darbiga lagu dhijiyo dharka saas loo sursurto hook baa la yidhahdaa. Okay, hangergana waa baash yar ama caag ama bir way ka samaysan tahay
marada shaatiyada ama waxsaas funaanadaha saas u gelinaysaa then maradii iskuma jajabayso okay si toosan baa kadib meel baa saas ula suraysaa hanga baa la yiraahdaa okay yaa so spelling koodana si fiican insha Allah u eega ereyada dhawaaqooda xifdiya insha Allah si heer sarana u qorta idinka intaad jumla gelisaan xagga comment insha Allah nagula wadaaga at least 2 ama 3 midkood inaad jumla aad geliso dualeedno waxaan rajaynayaa muuqaalka in aad ka wada faa'iideysateen insha Allah muuqaalka like gareysina share gareeya dhiirigelin bay inoo tahay sidoo kale casharada sida qaaska ah oo iskoolka uga baxo koorsooyinka ah wixii u baahan oo markaas in si qaas ah loo soo dhiso insha Allah nala soo xiriira WhatsApp-keena insha Allah waxaan ku reebayaa commentiga ugu horeeya ama description-ka muuqaalka xiga inta ka kulmi doono sidaas nabadgelyo